السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله waxaan jeclaaday maanta inaan ka hadlo mowduuc yar oo muhiim ah hablaha hablaha horta runtii aad baan u jeclahay hablaha waxaan qoray buug ah waxaad tahay boqorad anigu waxaan u haystaaba mar walba habluhu inay boqorada yihiin hablo badan baa waxay la soo wadaageen mowduucyo aad moodaan isku mid yihiin aad iskugu dhow yihiin een habluhu waxay odhanayaan waxaan haysta stress ciil baan ku noolahay murug baan ku noolahay waxaan ku noolahay yacnihi murugo nolol aad u xun wallaahi aad baan u murugooday aadna waan uga xumahay adduunka inan baan u jeclahay mowduuca markaan ka hadlayna wallaahi runtii aad ma jeclaysto waan aad baan u necbahay intaan rabadana gaadhin ba waxaan jeclaaday inaan hablahaas ilmaha igu soo celcelinaya inaan tala yar siiyo حبيبتي الغالية يعني waxaad tahay qof qaaliya waxaad tahay qofka adduunka ugu sareeya waxaad tahay boqorad waxaad tahay lagama maarmaan waxaad tahay laf dhabarta bulshada yacni lagama maarmi karaba inan markaa walaashay macaaney waxaan aad tahay waxaasoo sharaf aad leedahay sidee baad ugu noolaan kartaa murugiyo ciil waay sidee baad naftaada u ciilkaabiyi kartaa wuu jiraan guurku inuu xumaado marka qaarkood yacnihii dad qaarkood ilaahay wuu hagaajiyaa dad boqor ah buu ilaahay siiyaa dad wanaagsan bay siiya farxadooda noloshooda ka shaqeeya ilaahay siiyaa hablaha qaar guurka ka xumaada aad bay u murugoodaan qof xun buu ilaahay ku beegaayo yacni jir xun aad soranayso qofkan talo bini'aadanba maan ahayn haddii taasi kugu dhacdo walaashay macaanay murugadaasi yacni waxaasi kula soo darsaan naftaada ha ka jarin حبيبتي الغالية مرة بنفط هذا لمبر وان كديك مركز الورا لفتن إلهي بكسيي سبب مرغون كرتا لا يمكن أدون كان المرغو ضد لا يمكن إن نعيش الكابية لا يمكن إن نحيط ولا يعني أن عرقنا ولا هذا لا يمكن إن الكرسون هبلا قاربة كورونا الكرسون اللي بحتاج قال أنت واي الكرسون كقول مكرتا ولا شيء معاني سدابي يعني وقف بالآذن والضعيف والله سبحانه وتعالى أبوري والضعيفة سدابد سوقو مشغولين كرتا حبيبتي الغالية سدابد نفتا هو حيت ولا سوقو بدل كرتا وخلد وين مر والبها بلها وين كلا هذا مر كستو حن نفتي نمبر 1 كدغا lambarka koowaad naftaada ha noqoto wala ilaah subxaana watacaala adduunka wuxuu kuu keenay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun yacnihi markaad ilaahay caabudood farxad ku noolaatood ilaah raali gelin bilaa intaad raali gelinsa daba cararayso allah baa maxay toole ku abuurtay adduunkan ku keenay isaga raali geli dabeet maxaad helaysaa markaad allah raali geliso farxad baad helaysaa adiguna dee taas beddelkeeda waxaad ku noolaanaysaa nololta ugu wanaagsan hadduu kaa xumaaday calafku arrimo badan baa jira dariiqooyin badan baa kuu bannaan aad isku yacni aad ku badbaadin karta naftaada haddii aanad arkayso meeshan aad ku noolaan kari hayn de dariiqooyin badan baad haysataa walaasha macaani maaha ina kalsoonida kaa lunto maaha inaad isciil kaa dugo maaha inaad tiraahdo nolol ciriiriyaan ku noolahay kala saa looma baahna xabiibati alqaaliya imikana rabadaan baa inoo soo socotaa rabadaan yay kuu soo gelin adigoo murugoonaya adigoo ciil ku hayo adigoo caloosha kuu buuxdo yani kuu soo gelin rabadaan xabiibati alqaaliya cafiska baro mar walba dadka iska cafi naftaadana jeclow ha ogolaanin in yaroo khalada maxay tahay naftaada ka gasho amba lagaa galo qiimaad leedahay xabiibati alqaaliya kalsoonidu iyo kaalimin kalsoonidu totalis iyo kaalimin xabiibati qofka ugu sareeya noqo han yeelo walaasha macaaney wax walba adduunka waa dhici karaan maaha inaad maxay tahay dhibaato walba kula soo diristaad tiraahdo nafteedii baa nacay qaar baa ku odhanaya nafteedii baa nacay waay naftaada u nacaysaa ma qof bili-aadan naftaada u nacaysaa xabiibati kayf saa u dhici kartaa sidaasi naftaada ha nicin naftaada mar walba horeysii xitaa maxay toolay dad hablo qaar baa ku odhanaya stress markuu naga bato carruurtii baan ka jarnaa carruurtii baan dilnaa carruurtii baan caynaa carruurtii adduunka maxaad u keenaysaa carruurta xabiibati ya carruurtan adaa ka mas-uula farxad wayna siiso waynay ku arkaan mar walba adoo faraxsan mar walba adoo waxaan ku leeyahay niyadda u dhiseeya sidee bay carruurta beri ka maalin qeyrkood ula qaybsan karaan wax carruur wada murugoonayso wada stress haya wada muraadilacsan baa meelaha ku arkaysaa oo maxaa tala yaabayso ilmahan maxaa khaldan maxaa sidan ka dhigay walaashay macaan ubadkan adaa keenay adduunkan ubadkaaga ha ka jarin wixii kula soo dirsaa ha ka jarin ubadkaaga raaca ilaasho bili-aadanna ha isku mashquulin walaalo bili-aadanna ha isku mashquulinin
dariiqooyin badan baa kuu bannaan baan ku yidhi dariiqooyinka haddaad qofka la noolaan karin aad is arkaysa dee inaad khatar ku jirto dee allah subxaana watacaala dariiqooyin badan buu kuu baneeyey walaalo ciilna ha ku noolaan ha isciilkaabiyin ha murugoonin faraxsano oo aayar naftaada ilaasho xabiibati cid naftaada kuuma ilaalinayso haddaad adigu naftaada maanta nacdo matalan dayaa isugaya ii jeclaanaya nafteeda wax ii qabanaya lama sugayo qof kale bili-aadan ilaahay wartino aniga nafteeda wax ii qabto aniga nafteeda wax u qabanaya aniga nafteeda jeclaanaya aniga nafteeda wixii samaa garanaya markaa waa xabiibati alqaaliya ha samaynin waxyaabaha qaar arrintaan ayay soo noqnoqon stress baan ku noolahay stress waa maxay anu stresska dee maxay taalay wax way kula soo darsi karaan xumaan yacnihi dhibaato way kula soo darsi kartaa dee laakiinse ilaah baa kuu sheegay sad uga badbaadi lahayd xabiibati fafiruu ila allahi ilaahay yidhi ilaah u carar xaggiisa ah waxba kaama xumaanayaan rugaysiinin hana noqonin qof maxay taalay adduunka ciilku u nool yacnihi aakhirna meel kuma lihid adduunkiina waa isku ciilkaabibay hablaha qaarba waxay ka odhanayaan ninkii waa nala guursaday hadduu nala guursadayna naftu waa nacno nolosha waa nacno ciyaalkii waanu dayacnayo qofkan bili-aadanka ilaahay kuu geeyo hadduu guursaday oo adigu xaqaagii kasoo baxay hadduu xaqaagii kasoo baxay qofkani uu ilmahaagii xaqiisi kasoo baxay uu guursaday dee horta waa qoraal ilaah baa u qoray hadduu guursadayna dee adduunkao dhan muu baabi'in marka hore qofkan aad dooranayso waxaad ogaataa inuu kaa dhiman karo xitaa inuu kula guursan karo inuu ku nici karo kaa tegi karo waxaasoo dhan aamin walaala maca naftaada wax walba ka horeeya haddii ubadkaaga uu biilinayo wada adigana ku biilinayo ku ixtiraamayo ixtiraam baa lagu wada joogaa soo maaha hadduu ku ixtiraamayo dee walaala macaanay aayar gurigaaga fadhi oo carruurtaada hayso awaan waalanaya ha odhanin waa guurku muxuu yahay ha guursado adiga maxay taalay naftaada ka muhiimsan wax kasta walaala maca adiga naftaada waxaa ugu daran dee horta qofa naxba hayno adigana naxba ku siinin oo aan xaqaqii kasoo bixin hadduu guursado kaasi dee kaa ka hadal waxaad tirahdaa maanta dee xaqaygaba kama soo bixina sidaaba ruux lagu soo lugoyn karaa gabadhka lagu soo lugoyn karaa ha taas dabcan ka dhiidhi laakiin qof xaqaagii kasoo baxay waxay ku odhanaysaa wax walba halkaas uu soo dhigaa xaqayga uu kasoo baxay carruurtiisii heer sare ku nool yihiin maasha allah waanu ila guursaday waan murugoonay maxaad la murugoonaysaa marka waayo u murugoonaysaa walaala maca naftaada iyo carruurtaada ka muhiimsan wax kasta ha guursado hadduu doono afar ha guursado naftaada jecla xabiibad hablaha qaar baa odhanaya ma hinaasa maaha hinaasaha hadduu naftayda hinaasu waxyeelayo oo hinaasuhu maxay taalay aniga dhaawac ii geysanayo hankayga hoos u dhigayo ma hinaasaya maxaa u hinaasaya qofkan haddaan la joogi karin waan la joogi karaya waan la joogaya ubadkayga wax walba ka muhiimsan naftayda wax walba ka muhiimsan haddaan qofka marka hablaha odhanaya un guursadayo waan naftayda waan dayac wallahi inan baa igu tiri yacni waan la yaabay xoog waan la yaabay waxay ku leedahay waan nafteydii waan dayacayo carruurteydii waan dayacayo uu la guursado marka hore de qof wanaagsan buu haayo wax walba uu noo soo dhigay wax walba dee xaquu kasoo baxay xaqeedii xaqi ubadka buu kasoo baxay laakiin waan markuu guursaday waxaan ogaaday wata inuu inacay hataa hadduu ku nacay ma ilaahay baa ku nacay ha ku naca hadduu doonayo dee aduu naftaada jeclow haddaad naftaada jeclaato dee isaga beri ka maalin kusoo daba cararayo ku jeclaan laakiin haddaad naftaadii nacday aad tiri bili-aadan walaa la isku xidhayayo aan isciilkaabiyayayo halkanan maraya halkanan maraya halkanan sharafteedii meel kaga dhacaya yaa ku jeclaanaya yaa wax kugu falaya dee uu kaasii carari uu kaasu tegi afartaba uu dhamaystiri markaa walaalo guurku maaha wax muhiima weyn maaha xaqayga hadduu kasoo baxay ubadkiisana uu kasoo baxay dee uu guursado gartaba inuu guursado dee waxa ka xun anigu waxaan arkay inuu ka xun yahay qofka meelaha meeraysan iyo dee shalmada raaca ah qof guursado waa qof sharaf leh ha guursado xaqaygana uu kasoo baxay okay haddaan markaa anigaas eegay naftayda markaa hablaha qaar baan xamili karin dee maxay toolay naasigu ka tambata anaa is eegaya haddaan qofkan bili-aadanka la noolaan karayo okay waan la noolaanaya dee shaqadayda danteeda ka weyn wax walbaa qabsanaya haddaan la noolaan karahayn oo aan arkayo inaan dhibaato weyn ay igu jirtaan xanuun ka qaadayana dee walaala qof bili-aadan ma cadibayo dee maxay toolay masoo kuma jiro yacni noloshaas waan ka baxaya waan tashanaya marka laakiinse waan isbahdilayayo maxay taalay ila guursado kana sameeya kana gabadhii baan daydayanaya maxay baan daydayan ha sharaftaada waa ahayn hoos ha isku dhigina hablo sharaftiina kor u qaada han isku yaa xabiibati alqaaliya gabadh walba guursato oo samirtay oo danteeda raacday oo tiri maanta ubadkaygaan korsanaya maanta waa ta ugu farxadda badan loogu jecel
حبيبتي raalli iga noqda kolley ma jecli arrimaha inaan ka hadlo wallaahi way dhibtaa waayo waxaan jecelahay inantu inay faraxsanaato inantu inay han yeelataan jecelahay inantu inay horumar gaadho naftaada ku fikir walaale macaan naftaada horumar gaadsii adigu wax baro adigu isi soo saar shaqayso hadaad doontid laakiin qof bilaadan nafteeda u nacaya anu taasaan diidaya uma u nacayo qof bilaadan naftayda uma nacayo waan jeclaanaya marka xabiibati alqaaliya waxaan kusoo gabagabaynayaa canaantayda canaantayna waan jecelahay waxaan necabahay inaan la stress bay haya waa aad baan u necabahay iyo waan murugoonaya iyo kalsoonida bay iga luntay waa qof bili-aadana daciifan kalsoonida ugu luminaya ha rabadaan baa soo socota caloosha hala faaruqiyo haddii aad ahayd hablahaas ila soo hadlaya ee fariimaha iisoo diraya ayaan la hadlayaa carruurtaada dib u eeg rabadaan yay kuu soo gelin adigoo marxaladda xumeed ku jira rabadaan yay kuu soo gelin adigoo murugoonayo ciilku hayo walaashay macaana tasho allahna arrimahaaga u dhiibo aad baan idin jecelahay ilaahay rabadaan nabadqab iyo farxad haynagu gaadhsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu